بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaashana qiimaha qadarinta oo meel walba aad naga daawanaysaan halkan waa gool 24 fadlan hadeed ku cusub tahay subscribe inoo saar dabcan gambalelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya warbixinada halkan inuu soo gelino ay ku soo gaaraan Manchester City ayaa Etihad Stadium ku jiiday naadiga Tottenham xilli Ilkay Gundogan uu laba gool habeenkii xalay hadaliyay xilli Mourinho wajigaba xoogan uu kala baxay gigida caanka ah ee Etihad Stadium kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa garoonka Etihad Stadium ku dhex jiiday naadiga Tottenham oo ku garaacday 3 gool waxba kulan oo ay kaga aargoosatay Hotspur kulankii u dambeeyay oo ay dabcan ka badisay labada kooxood ee Manchester City iyo naadiga Tottenham. Sky Blue ayaa sii dheerisay hoggaanka horyaalka ciyaaraha Premier League oo ay ku qabatay 8 dhibcood oo ay kaga horeyso Manchester United oo ku soo xigtay halka Liverpool iyo 13 dhibcood oo nadiif ay ka horeyso walow Man City uu kulan baaqo yahay kadib markii xalay ciyaartay kulanadii 23aad halka Liverpool iyana laftirkeedu ay ciyaartay kulanka 24aad. Rodri ayaa rigoore ku daafuray bandhiga goolasha kooxda Sky Blue daqiiqadii 23aad ee ciyaarta waxaana qaybtii dambe gool dhaliyay uu isku bedelay Ilkay Gundogan oo laba gool oo Darandoria ku hubsaday shabaqa uu waardiye ka yahay gool wale Hugo Lloris goolkii ugu horeeyay Gundogan uu dhaliyay daqiiqadii 50aad isagoo gool u sarrifay kubad uu ka Raheem Sterling hase yeeshee kubadaas labaad oo uu soo tuuray gool wale Anderson ayaa Ilkay Gundogan guusha uu ku xaqiijiyay naadigiisa xilli ay saacadu garoonka ku taagneed daqiiqadii 66aad. Manchester City ayaa heshay fursad ay goolal kale ku dhalin kartay hase yeeshee gool wale Hugo Lloris iyo Ben Davies ayaa ahaa kuwa hor istaagay kubad goolal loo qaatay oo Jesus Silva iyo xidiga kale oo ku jira Phil Foden ay xerada ganaaxa goolka ku toogteen. habeenkii xalay ahaa tobar Jose Mourinho waxa uu ciyaaraya hanaanka ah 4-3-2-1 goolka wuxuu ku soo bilaabay Hugo Lloris, Joseph Tanganga, Davinson Sanchez, Eric Dier, Ben Davies, Tengai Indapelle, Pierre M. Holdibe, Eric Lamela, Lucas Moura, Son Heung-min iyo Captain Harry Kane. waxaa kayd ku jira Matt Doherty, Toby Alderweireld, Harry Winks, Gareth Bale, Joe Sissoko, Dele Alli, Steven Bergwijn iyo Carlos Vinícius. ciyaartoyda Manchester City habeenkii xalay waxay ciyaarisay 4-3-3 goolka waxaa ku soo bilowday Henderson, Joe Cancelo, John Stones, Emerick Laporte, Alexander Zinchenko, Bernardo Silva, Rodri, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling, Gabriel Jesus iyo Phil Foden. keed waxaa la soo fariisiyay xalay Kyle Walker, Ruben Dias, Sergio Aguero, Steve Izvin, Ferran Torres, Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, Eric Garcia iyo Tommy Doyle. furitaanka kulanka daqiiqadii 23aad Manchester City ayaa daafurtay difaaca Tottenham waxaana rigoore loo dhigay kubadaas lagu qaaday ciyaaryahan Ilkay Gundogan oo ciyaartii u dambeysay ka khasaariyay taasoo keentay in Rodri loo dhibo. laacibka reer Spain ayaa toogtay dhinaca midig ee goolwale Hugo Lloris hase yeeshee goolwalaha reer Faransa ayaa kubadaas gacanta ku leexiyay inkastoo uu dhameystiri kari waayay in goolkaas uu ka badbaadiyo. kubadda rigoorada Rodri ayaaba laftirkeedu qalqal gashay markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee dheesha ay maraysay daqiiqadii 50aad ayuu Ilkay Gundogan hoggaan u sii dheereeyay kooxdiisa waxa uuna kubadaas xarada ganaaxa uu ugu keenay Sterling uu ku toogtay goolka waxay sidaas ciyaartu ku noqotay 2 gool iyo gool. goolka kale ciyaaryahan goolka u ilaaliya naadiga Manchester City ee Ederson ayaa isaguna dabcan sameeyay caawin la yaab leh iyadoo inta badan goolwalayaasha ay dhafi naadir ay tahay inay caawinada ka qayb qaataan ama ay sameeyaan. Ederson ayaa kubadaas u soo tuuray waxaana qabsaday Ilkay Gundogan oo laba difaac sii marsiyay isla markaana fursadaas u dhaafiyay gool wale Hugo Lloris. Manchester City ayaa dhamaadka heshay fursad dahabi ah oo ay kubadaas dabcan lugta u gashay naadiga Tottenham ciyaaryahankooda lagu magacaabo Gareth Bale oo bedel ku yimid oo la soo dhex jiray qaar ka mid difaacyada kooxda kubadda cagta ee Manchester City kadib lugtiisa bidixna ayuu ku toogtaasay gool wale Ederson ayaa kubadaas iska saaray. Ilkay Gundogan ayaa dhigay rikoorkiisa ugu fiicnaa ee gool dhalinta wuxuuna xil ciyaareedkan dhaliyay 9 gool 4 ka midna oo u saxay 2 ciyaarood oo u dambeysay oo ay kooxda Manchester City ciyaarisay. haddaba aynu fiirino Manchester City ay 2 gool oo Liverpool ay 2 gool ka dhaliyay waxaa ku sii xigtay Tottenham oo 2 gool ka dhaliyay ciyaaryahanka reer Jarmal aslaan ka soo jeeda dalka Turkiga Ilkay Gundogan laakiin hore waxa uu soo taabtay shabaqa kooxaha Chelsea, Crystal Palace, Aston Villa ayaa si lamid ah kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion min gool ka soo dhaliyay laakiin Liverpool 2 gool ayuu ka dhaliyay si lamid ah kooxda kubadda cagta Tottenham 2 gool ayuu ka dhaliyay. haddaba xaqiiqooyinkii habeenkii xalay
xalayta laga bartay kulan ciyaareedkii u dhaxeeyay labada kooxood ee kala Manchester City iyo naadiga Tottenham ayaan bal fiirin doonaa laba gool uu dhaliyay Ilkay Gundogan qaybtii dambe iyo mid horeba uu rigooro ah uu qaybtii hore u siixay ciyaaryahan Clarence Ben Rodri ay Manchester City ay ku garaacday Tottenham oo marti u ahayd Giggs Stadium Omar Pep Guardiola ayaa kooxdiisu ay u eed habeen farxadeed oo ay kooxdii labaad weyneed ay goolal badan ka dhalinayeen horay Liverpool ay 4 gool isbuucii hore ku soo xaqay xalayna Tottenham ay dariiqaas oo kale ay sii raacsiiyeen City ayaa ku sii dhawaanaysa hanashada horyaalka ciyaaraha Premier League iyadoo 8 dhibcood ka horeysa kooxda Manchester United oo caawiyana ciyaari doonta sidaas ayna Manchester City ku haysataa hal ciyaar oo wali baaqo haddaba aynu eegno habeenkii xalayta xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyay kulan ciyaareedkii u dhaxeeyay labada kooxood ee kala City iyo Spurs Manchester ayaa guul dar la'aan si ahaatay kulankii 23aad oo xiriir dhammaan tartanadooda waxayna muddadaas ay soo badiyeen 20 ciyaarood 3 ciyaarna barbara ay galeen koorka cajiibka ayaa waxa uu yahay in muddadaas laga dhaliyay 6 gool oo kaliya xaqiiqada kale ee City ay sameysay waa inay sii dheersay rikoorka guulaha xiriirka ee abid ugu badnaa oo ay diiwaan gashay waxayna badiyeen dhammaan 16 ciyaarood oo u dambeeyay oo xiriir ah Manchester City ayaa hal daqiiqana u dagaalamin in ay ka daba tagto koox gool kaga hormartay dhammaan 15 ciyaarood oo u dambeysay oo 15 ciyaarood oo u dambeysay oo ah intii ka dambeysay guuldaradii Tottenham ee u xambaarsay bishii November sanadii tagtay intii waqtigaas ka dambeysay City ayaa la hormaraysa guulasha waana markii ugu horeysay ee sidaas sameysay intii ay jirtay Arsenal oo rikoorkan oo kala sameysay muddadii u dhaxaysay December 1998 May 1999 waana 19 ciyaarood oo ay kooxda goolal la hormaraysay Arsenal mid kale waxay tahay Tottenham ayaa laga badiyay 4 kamid ah 5 ciyaarood oo u dambeysay horyaalka Premier League waana guul darro ka badan intii soo gaadhay 18 ciyaarood oo u dambeysay horyaalka ciyaaraha Premier League mid kale waxa ay tahay Manchester City waxay noqotay kooxdii ugu horeysay 14 ciyaarood oo kamid ah 13 ciyaarood oo ugu horeeyay horyaalka aan wax gool laga dhalin tan iyo intii ka dambeysay Manchester United 17 ciyaarood oo aan laga dhalin wax gool iyo Chelsea 14 kulan goolkeeda ilaashatay xil ciyaareedkii 2008-2009 mid kale waxay tahay Tottenham ayaa labadii ciyaarood oo u dambeysay laga dhaliyay 8 gool Everton ayaa 5 gool ka soo dhalisay ciyaartii FA Cup-ka halka City ayna ka dhalisay 3 gool oo kale u raacisay waa goolashii ugu badnaa Mourinho laga dhaliyay 2 ciyaar gudahood intii uu tababaro ahaa mid kale Anderson ayaa caawiyay goolka saddexaad iyaga oo la toos uu ka soo tuuray goolkiisa waxaana uu horay sidan oo kale u sameeyay kulankii Javel Agosto 2018 Schalke February 2019 haddaba habeenkii xalayta ciyaartoydu waxay ahaayeen kuwa garoonka intay isaga jireen ku fashilmay iyo kuwa garoon ku jiray oo ay wacdara dhigayeen xidigii garoonka kuma noqday Ilkay Gundogan ayaa 2 gool dhalay waxa uu noqday xidigii ugu fiicnaa garoonka isagoo helay darajada 9 buund ama 9 dhibic laacibkan ayaa bandhig garoonka oo dhan ugu sareeyay ahaa laakiin kooxdiisa ayaa wada fiicneed marka laga reebo Gabriel Jesus oo laacibka ugu qiimeynta hooseeyay xidiga kooxda Sky Blue xidigii ku fadhiixay ciyaartii xalayta goolaha kooxda Tottenham Hugo Lloris ayaa ciyaartan soo jiidan waay waxa uu soo hooyay ceeb waxaana ka mid ah xidigii ugu liita garoonka oo dhan wuxuuna la qiimeyn darajadeedu ay tahay ilaa 3 aynu bal fiirin ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Manchester City Henderson 8 darajo ayuu helay Joe Cancelo 8 Stones 8 Laporte 7 Zinchenko 8 Rodri 8 Gundogan 9 Foden 7 Silva 7 Sterling 8 Jesus 6 ayuu helay ciyaartoyda bedel ku soo gashay min 6 ahaayeen waa Ferran Torres iyo Lamada Riyad Mahrez Tottenham Hugo Lloris 3 darajo ayuu helay Tanganga wuxuu helay 6 darajo Dier 6 Sanchez 5 ayuu helay Davies 6 ayuu helay Into Pele 6 ayuu helay Hodebaj wuxuu helay 5 Lamela 5 ayuu helay Moura 6 ayuu helay Son 6 ayuu helay Kane 7 ayuu helay bedelka xal soo galay waxa kamid ahaa laacibka lagu magacaabo Sissoko 5 ayuu helay Ali 5 ayuu helay Pelna 6 ayuu helay marka taas ka dhigaysa in ay habeenkii xalayta ahaayeen kulamadaasi kuwa soo jiidasho laha waa tahay kulamo kala duwan ayaa galabta ilaa iyo caawa laga ciyaar doona horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub balse aynu fiirino hordhacyada xiisaha badan ee u dhaxeeya labada kooxood ee kala Manchester United iyo salamada kooxda kubadda cagta Arsenal oo Leeds iyo West Bromwich Albion la kala ciyaari doona aynu fiirino hordhaca labada kooxood Arsenal ayaa marti gelin doonta kooxda Leeds United kulan ka dhici doona garoonka Emirates Stadium kana tirsan toddobaadka 24aad horyaalka ciyaaraha Premier League Arsenal ayaa kulankaas soo galaysa iyadoo isha ku haysa in ay ku soo laabato dhabaha guulaha kadib markii 2 kulan oo xiriir ah lagaga badiyay ciyaaraha Premier League dhanka kalena Leeds ayaa kulankaas soo galaysa iyadoo ku jirta qaab ciyaareed fiican waliba badisay kulankii u dambeeyay oo ay ka dheeshay ciyaaraha Premier League ogeysiiska ciyaarta kulanka waa Arsenal Leeds United tartanku waa Premier League goortu waa 7 iyo qadar 30
daqiiqo waqtiga fiidka magaalada muqdisho. garoonka ciyaarta ay ka dhaceysa waa MRT Stadium. xaqiiqooyinka laga diiwaan geliyay koordheesha u dhaxeysa labada kooxood ee kala Arsenal iyo naadiga West Bromwich Albion. Arsenal ayaan laga badin 27 kulan oo u dambeeyay Premier League oo ay la ciyaartay kooxaha ka soo dalacay kuna soo ciyaaray garoonka 2010-2011 markaas oo guuldaro ay kala kulmeen kooxda West Bromwich Albion Newcastle United. Bukayo Saka ayaa abuuray fursadihii ugu badnaa oo sidoo kale lagu galay qaladaadka ugu badan marka la barbar dhigay xidigaha kale ee Arsenal xilli ciyaareedkan waxa uu dhaliyay 5 gool halka uu caawiyo ka noqday 2 kale. Leeds United ayaa isha ku haysa inay gaarto guusha saddexaad ee xiriir Premier League kulamada martida markii ugu horeystay August 2002. Leeds United ayaa ku fashilantay inay gool ka dhalisay Arsenal labadii kulan ee u dambeeyay tartanada oo dhan intii uu Marcelo Bielsa uu hogaaminayay waana kooxda kaliya uu tababare Marcelo Bielsa xirfadiisa tababarnimo wax gool ka dhalin inkastoo 2 jeer uu wajahay kooxda Arsenal. dhanka kale Manchester United ayaa caawa ciyaar doonto oo la dheeli doonto naadiga West Bromwich Albion halka Arsenal la ballansan tahay naadiga Leeds United. Manchester United ayaa marti u noqon doonta kooxda West Bromwich Albion kulan ka tirsan toddobaadka 24 ee horyaalka ciyaaraha Premier League kana dhici doona garoonka caanka ee lagu magacaabo Heathrow. Manchester United ayaa kulankan soo galaysa iyadoo isha ku haysa in ay ku soo laabtaan dhabaha guulaha kadib barbariya ay la gashay toddobaadkii hore kooxda kubadda cagta ee Everton. dhanka kale West Bromwich Albion ayaa kulankan soo galaysa iyadoo doonaysa in ay u dagaalamaan sidii ay u sii xajisan lahaayeen ka mid ahaanshiyaha kooxaha ka qayb galaya xilli ciyaareedka soo aadan tartanka English Premier League. ogeysiiska ciyaartu kulanku waa West Bromwich Albion Liverpool, tartanku waa Premier League, waqtigu waa 1 ama 5 ee galabnimo ama 11 galabnimo. garoonka ciyaartan ay ka dhici doonto waa Heathrow. xaqiiqooyinka laga diiwaan geliyay coordination Sam Allardyce ayaa garaacay 2 kulan ee ugu horeysay Premier League isagoo labadaba kaga badiyay garoonka Old Trafford kooxda Manchester United isagoo garaacay sanadahaas 2001 2002 2003 laakiin wixii intaas ka dambeeyay waxa ay gaadhay hal guul 22 kulan uu wajahay. West Bromwich Albion ayaa laga dhaliyay goolasha ugu badnaa Premier League iyagoo laga dhaliyay 54 gool halka Manchester United ay dhalisay goolasha ugu badnaa oo ay gaaraysa 49 gool. intii uu hogaamiyay uu ahaa tababare Ole Gunnar Solskjaer kooxda Manchester United ayaa laga badiyay kulanadii ugu badnaa ee kooxaha ugu hooseeya horyaalka Premier League marka ay ka hortimaado waxaana laga adkaaday 10 ayaa la ciyaartay 5 ayaa laga badiyay waxayna badisay 2 jeerna barbaro ayay gashay. Edson Cavani ayaa isha ku hayay inuu dhaliyo goolkii saddexaad oo xiriira markii ugu horeysay bisha January 2019 markaas uu ciyaaray kooxda Paris Saint-Germain oo sidaas oo kale laacibka heerka caalami ee dalkaasi Uruguay uu ku sameeyay xilli 2 kulan oo ganaxa xiriir kubadda cagta adduunka uu u gacan geliyay ciyaaraha marka loo fiiriyo koobka adduunka isla reebkiisa oo wadamada Argentina iyo Bolivia uu seegi doono.